daawadayaal ku soo dhawaada taariikhdii caadilkii soo maray ummadda Islaamka. Waxay ku magacaabaan taariikhyahanada Islaamku khaliifkii shanaad ee khulafaa ur-raashidiinta, waxa uuna ahaa khaliifkii sideedaad ee Umayyiyiinta. waxaa la soo wariyaa waayihiisa in qofka hantilaha ah haddii uu rabo inuu sakada bixiyo uuba waayo qof uu siiyo oo baahan. waxaa kaloo la soo wariyaa in waayihiisaas ay yeydu cuniba jirin ariguna ka didi jirin yeydu. qofkaas aan ka waramayana waa Umar bin Cabdilcaziis bin Marwan bin Hakam. waxa uu dhashay sanadii 61 hijriyada, waxa uuna ku barbaaray gurigii qoyskii Umar bin Khadaab oona lagu tarbiyay. waxa ay u ahayd gabadhii Umar bin Khadaab asagoo magaalada kormeeray uu maqlay iyadoo hooyadeed ku leedahay caanaha biyaha ku badi, gabadhuna ay leedahay amiirka muuminiinta waa mamnuucay arinkaas. waxa ayna markaasi hooyadeed leedahay na Umar inama arkay caanaha biyaha ku badi, gabadhuna ay ku jawaabayso hooyo amiirka muuminiinta inta aan ku adeeco dadka dhexdooda marka aan gaarka ahay caasin maayo, haddii aan Umar ina arkeenin rabbigii ina abuurtay ayaa ina arkaya. Umar bin Cabdilcaziis waxaa dhashay gabadhaas gabadhii ay sii dhashay waxayna u ahayd ayeeyo. Umar yaraantiisiiba waxa uu bartay diinta isagoo xifdiyay quraanka, waxa uuna ahaa caadil iyo qof rabbi ka cabsi badan. inta uu qaban xilkana waxa uu ahaa qof loola laabto amuuraha dawladda, talana laga weydiiyay haddii loo baahdo. waxa uu Waliid oo ahaa amiirkii Umayyiyiinta uu u magacaabay Umar gudoomiyaha magaalada Madiina, sidaas ayuuna maamulkii magaalada kula wareegay, cadaaladna ku maamulay. dadkuna waxa ay dareemeen ammaan iyo cadaalad markii uu xilkaas midahayayna waa la casilay. markii uu Waliid dhintayna waxa xilkii qabtay Suleymaan bin Cabdilmalik, waxa uuna ka dhigay Umar bin Cabdilcaziis la taliyihiisa. markii uu dareemay in geeridiisii soo dhawaatay waxa uu dardaarmay in uu Umar noqdo dhaxalihiisa. Umarna asagoo raali ka ahayn ayuu qabtay xilkaas. Umar ayaana khudbad soo jeediyay oo dadku ku leeyahay xilkan anigoo aan raali ka ahayn ayaa turta la ii saaray ee doorta cid idin hogaamisa, laakiin markiiba dadkii ayaa ku yiri adiga ayaan ku dooranay, dadkuna way yaqaaneen cadaaladiisa. wuxuu hogaamiyaal dadka uga dhigay dadkii la hubay diintooda, aqoontooda iyo cadaaladoodaba, waxayna taasi sabab u noqotay inuu xilligiisii noqdo waayihii ugu cadaalada badnaa ee khilaafadii Umayyiyiinta. dhanka dhaqaalaha muslimiinta waxa uu gaarsiiyay in la waayo cid tuugsataba, waxa uuna ka bilaabay cadaaladaasi gurigiisa asagoo xaaskiisa intii u tagay kana soo qaaday dhammaan dahabkii ay haysatay, ku yiri aniga iyo dahabkana kala dooro. ayaduna ay ku tiri adiga ayaan ku doortay. waxa uuna markaa kadib iskugu yeeray qoyskii Umayyiyiinta kuna yiri soo wada celiya dhulalkii iyo hantidii aad sifada aan xaq ahayn u qaadateen ama aad awoodiina u adeegsateen. waqti yar kadibna waxay madaxdii Umayyiyiinta arkeen ayagoo aan wax hantiya haysanin, hantidiina baytulmaalka muslimiinta ayaa lagu wada celiyay. waxaa la soo wariyaa in Umar bin Cabdilcaziis sida uu iskaga ilaalinayay hantida muslimiinta ay gaartay inuu maalin u yimid nin Fariinsida ah oo xambaarsan wararka muslimiinta, waxayna wada fadhiisteen qol uu ka shidan yahay shumac. markii ay warkii dhamaysteen uu ninkii ku yeeray amiirul muuminiin oo ka waran xaalkaaga iyo ciyaalkaaga. kadibna inta uu Umar damiyay shumacii ifaayay uu shiday shumac yar uuna ugu waramay xaalkiisa shakhsiyadeed. ninkii oo sida ay wax u socdaan fahmiyay ayaa weydiiyay oo yiri amiirul muuminiin maxaa sidan u samaysay? Umar ayaa si ugu jawaabay inta aad iga waramaysay xaalka muslimiinta waxa inoo shidnaa shumac ah maalka muslimiinta, markii aad xaalkayga iyo qoyskayga iga wareysatayna waan iska damiyay shumacii hantida dadweynaha ahaa oo waxa aan shitay midkayga oo aan aniga lahaa ilaa waa xaalkayga iyo qoyskayga. mar kale oo nin dhulkiisa laga qaaday uu u yimid inta uu dhulkiisii u soo celiyay ayuu ku yiri inaad ii timaado mise qarashaha ayaa kaaga baxday. ninkiina wuu ka warwareegay oo waxba ma ahan ayuu ku yiri, balse Umar waxa uu amray in 60 diinaar oo ahayd waagaasi lacag wax badan goysa la siiyo ninkii. siyaasadaasi quruxda badneyd ee uu dhigay dhaqaalaha ummadda Islaamka waxa uu sababay in baytulmaalka muslimiinta buuxsamo oo hanti la circiro. waxaana mushaar loo qoray aqoon-yahanadii, ardaydii, mu'adinadii masaajidada, waxaana la soo madax furtay maxaabiistii muslimiinta laga haystay. intii ay maqnaayeenna waxaa loo biilayay reerahoodii, kuwa dambiilaha ah ee xabsiyada ku jirana reerahoodii waa loo biilayay. waxaa kaloo uu sameeyay Umar siyaasad aad u qurux badneyd oo ahayd in baytulmaalka laga dhisay cidii isguursanaysa ee aan wax haysan. dadkiina arintaasi way ku farxeen. waxa uu siyaasad wanaagiisii oo dhaqaalaha ku maareeyay Umar ay gaartay in inta wadooyinka la istaago lagu qeeliyo aaway dadkii deymaha lagu lahay.
aaway dadkii rabay in ay isgursadaan, aaway agoomihii, aaway faqiiradii, oo la waayay cid tiraahdo waa inaga ee waxayna siiya. Dhammaantoodna way baahi beeleen dadku. Cumar bin Cabdilcasiis waxa uu ahaa shakhsiyadda uu Ilaahay waafajiyay in uu qoro xadiisyadii nebiga. waxa uuna culimadii waayahaasi aad ugu booriyay in ay qoraan oo ay kala shaandheeyaan xadiisyada nebiga iyo xadiisyada been abuurka ah si faca iyaga ku xiga ay u helaan xadiisyadii nebiga oo keedsan. marka la eego dhanka furashooyinkana waxaa ka badneyd inta uu dirayo ciidan si ay u furtaan deegaano, in uu diro culimo si ay u furtaan qalbiyada dadka, diintuna ay dadka iskooda ugu soo galaan. wuxuuna dib u soo celiyay ciidankii muslimiinta ee go'doomiyay magaalada Qustandiniya ee uu diray amiirkii isaga ka horeeyay si ciidanka loo ogaasimo oo mar kale loo qalabeeyo. Cumar bin Cabdilcasiis waxa uu dhintay isagoo aan gaarin da'da 40 jir, wuxuuna xilka hayay 2 sano iyo dhowr bilood. waxaa loo aaneynayaa inuu u dhintay sun uu siiyay mid ka mid ah wiilashii u adeegayay. wiilkaasna waxa uu soo adeegsaday si uu u soo dilo qaar ka mid ah qoyskii Umayyidiin oo uu hantidii ay xaqdarada ku haysteen ka qaaday. markii uu Cumar cabitaankaasi cabay oo uu dareemay inuu sameeyay, waxa uu yeeray wiilkii uuna weydiiyay sababta uu sameeyay. wiilkii ayaa u sheegay in loo balan qaaday 1000 diinaar iyo in la xoreen doono. kadibna inta uu ka qaaday 1000 diinaar oo uu dhigay baytul maalka muslimiinta, wiilkiina inta uu xoreeyay ku yiri ordo meel aan cidna ka garanaynin aad. muddo 20 maalmood uu sakaraasanayna waa uu dhintay. Cumar waxa uu ku dhintay deegaanka Idlib ee dhacdalka Suuriya. hin iyo murugo ayaana lagu aasay. muslimiinta agtoodana waxa uu ku leeyahay heerkaas lagu tibaaxay qaliifkii shanaad ee muslimiinta. wabillahi tawfiiq. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.